wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Habane ayaa maanta kulan ballaaran la qaatay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada ay Saaxil ardayda jaamacadaha iyo kuwa sekondariyada iyo waliba ururada gaarka ah ee maxalliga ah. Kulankan ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa maamulayaasha iskuulada iyo waliba macallimiinta. Kulanka wasiirka ayaana daaranaa sidii wasiirku u dardargelin lahaa xuska 18 May oo ku beegan maalinta bari ah, taasi oo si caam ah qarankan lagu dhawaaqay in looga shaqeyn doono ama lagu taaguleyn doono ama taakulo loo geysan doono dadkii ay xaalufiyeen abaarihii dhawaanta haleelay Soomaaliland. Warana kulankan waxaa dah furay oo ka hadlay isduwaha waxbarashada ay gobolka Saaxil iyo gudoomiyaha ururka Sooya ee dhalinyarada Soomaaliland Cabdicasiis Siciid Saalax. munaasabadda ujeedadu sida Maxamed inoo sheegay waxay daaran tahay labada ujeedo. Number 1 waxa weeyaan sidii aynu uga qayb qaadan lahayn hawshaas sida heerka qaran loo shaaciyay ee ah taakulaynta saamaynta ay abaaruhu keenteen inaan halkan kaga wada xaajoodno. Talabaad waxa iyaduna qorshaha ku jirta halkan wasiirku ka shaacin doona qaadaan laga ururinayo ardayda dugsiyada hoose dhexe sare oo ay iyaduna ka mid ah ujeedadaas mutadawiciinta la doonayo inay ka qayb qaataan habka 18 May maalinta qarannimada Soomaaliland loo xusayo aad iyo aad u nasiib badan yahay maalintii ugu horeysay ee mutadawiciin noocan oo kale ay sanad uga qayb galaan. 18 May si weyn baynu u xusi jirnay sanadkan maadaama abaara ka dhaceen baan dad badan ay xoolihii iyo wixii ay adduun haysteen ay ku waayeen abaartaas. madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la isla gartay inaanay moral ahaan fiicnayn in lagu dabaaldego dadkii caydhoobay. arrintan oo ah wax weyn dadweynaha reer Saaxil ee gobolka Saaxil dhalinyartan Sooyo ay hogaaminaysa ee loogu talagalay mutadawiciinta ee qarashka guraan loogu talagalay gobol ahaan iyo degmo ahaanba diyaar baan inahay inaan wax la qabanno. maanta waxa weeye laba xafladood. waa xaflad aan dadkeennii wax ugu qabanayno walaalaheennii barakacay ee xoolaha iyo dhaqaalihii lafdhabarta Soomaaliland waxay ku xidhnayd waa xoolaha. gurmadka waxaynu kaga qayb qaadan karnaa inagoo jeebka gacanta gelin taana waynu isla qaadanay. waxaanu aad iyo aad u amaanaynaa bahda waxbarashada iyo tacliinta sare ee qaranka oo uu hogaaminayo wasiirku sida ay uga hawl galeen. waxaan u malaynayaa qorshayaasha ugu muhiimsan ee lacag ururinta inay qayb ka tahay sababtoo ah iyaga waa la yaqaanaa tirada ardayda ee macallimiinta systemka ay ku shaqeeyaan. ugu dambeyntiina wasiirka waxbarashada Soomaaliland ayaa ku dheeraaday arrintii madaxweynuhu ku dhawaaqay oo ah in sanadka 26aad soo sanadkii 26aad maaha sanadkii 26aad 18 May soo maaha oo ay ka dambayso 6 Juun ay ka dambayso 26keedii. labada munaasabadood ee isbarkan in aynu ku tallaabsanno qaaraan ururin lagaga soo kabanayo abaaraha waa arrin madaxweynuhu gudoomiyay gudina uu magacaabay weeyaan. gudiga ka soo kabashada abaaraha leeyahay gudigii hore maxaa la oran jiray taakulada abaaraha saas oo kala duwan yihiin. gudigii hore xisaab xidh baa laga doonayaa keeni doonaan gudigana xisaabta wixii soo hoyda 27 bisha Juun ayaa la soo keeni doonaa. lacag badan baa la qaybiyay dalka dibadiisa iyo gudihiisaba la $600,000 lacaganka yari baa dibadda lagu qaybiyay. gudahana ganacsatadii oo kuwa eeda biida siida ilaa kuwa suuqa ka ganacsada yar yar aqaladii ardaydii shaqaalihii kuwii dawladda kuwa rayidka ay u shaqeeya private-ka iyo kuwa shirkadaha u shaqeeya iyo kuwa u shaqeeya dugsiyada gaarka ah shaqaalaha gaarka ah ee aan ku jirin mushaharka dawladda
intaasoo kategoriga loo qaybiyey se loo gelayo waxaa laga yaabaa inay ku soo hagaagto aqalkii lacag u bixiyo ardaygiisii lacag uu dhiibo ganacsada hadduu yahay lacag kale uu bixiyo ilaahay baa badiyo barakeeye yaana odhan aqalkii baa laygu soo garaaco $3 baan ku shubay ama $5 baan ku shubay saadkiio inanka waxba ma dhiibaya maaha ilaahay baa ku ballaariye intaba waa dhiibaysaa uun وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاهي برشة تيفي مقالة حبيت بربرا.